Cusmaan Cali Khan waxa uu ahaa ninkii iskaalshadiisa ama sigisaantiisa gacanta ku tolan jiray marka ay dilaacdo balse dunida ugu taajirsanaa sidoo kalena maamuli jiray magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya xilliga Ingiriiska. Cusmaan Cali Khan mar wuxuu ahaan jiray ninkii ugu taajirsanaa dunida. Waxaan halkaan idinku soo gudbinayaa sheekada Cusmaan Cali Khan oo ka talin jiray maamulkii Hyderabad ee dalka Hindiya, waxaana magaaladan la aasaasay sanadkii 1591. balse intaanan sheekada guda galin fadlan ka mid noqo saaxiibada page-kan ku xiran like saar boga wariye Xuseen Cali Xuseen siina share garay si uu gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo adigoo kala ah. Cusmaan Cali Khan waxa uu ka hor yimid in maamulka magaalada la raaciyo maamulka Hindiya ee xilligaas. Nizaam Ali Mulki Asif Shah oo ahaa ku-xigeenka boqorka Hindiya oo hoos tagi jiray nidaamkii Mughals sanadihii 1713 ilaa 1721 ee Hindiya ayaa magaaladan kaga dhawaaqay maamul madax bannaan sida ay ku warantay barta Encyclopedia Britannica. Gumeystayaasha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa bilaabay inay maamulka kala wareegaan kadib markii uu geeriyooday Asif Shah sanadkii 1748, waxaana sanadkii 1768 lagu heshiiyay in Ingiriiska uu maamulo Hyderabad, waxaana halka ku sugnaa ciidamadii Ingiriiska tan iyo 1778. Cusmaan Cali Khan waxa uu ahaa ninka ugu taajirsan adduunka isla markaana caan ka ah. barta Encyclopedia Britannica waxay ku warantay in Cusmaan Cali Khan uu bishii Abriil sanadkii 1886 ku dhashay magaalada Hyderabad. wuxuu ku dhintay Hyderabad 24 bishii Febraayo 1967. wuxuu hogaamin jiray maamulkii Hyderabad ee bartamaha koonfureed ee Hindiya intii u dhaxaysay 1911 ilaa 1948. markii dambe wuxuu noqday madaxweyne. Cusmaan Cali Khan wuxuu ahaa ninka ugu taajirsan adduunka. wuxuu maamuli jiray dhul baaxadiisu ay la eg tahay Talyaaniga oo dhan. kadib markii uu dhameeyay waxbarashadiisa wuxuu aabihiis ka dhaxlay maamulka magaalada 29 bishii August sanadkii 1911. sanadkii 1918 wuxuu maalgeliyay in jaamacaddii Cusmaaniyiinta laga hirgeliyo Hyderabad. wuxuu dhaqaale ku bixiyay horumarinta nolosha dadka Hinduuga ah ee ku noolaa maamulkiisa. sanadkii 1937 jariirada ka soo baxda Mareykanka ee Time Magazine ayaa warbixin ay ka qortay Cusmaan Cali Khan kuna sheegtay in uu yahay ninka ugu taajirsan adduunka. ninkan waxaa laga soo tabiyay dhacdooyin dhowr ah sida in uu kaalmeyn jiray dadka saboolka ah iyo shaqaalaysiinta 38 ruux oo nadiifin jiray qasriga boqortooyada. dhinaca kale wuxuu gacantiisa ku tolan jiray iskaalshadiisa ama sigisaantiisa marka ay ka dilaacdo. wuxuu muddo bil xiran jiray hal labis isagoo aanan iska bedelin, xitaa wuxuu sigaarka ka qaadan jiray dadka asaga martida u ah. Cusmaan Cali Khan waxa sanadihii 1940 dhaqaalihiisa lagu qiyaasay 100 milyan oo lacagta Giniga ah, halka dahabkii uu haystay lagu qiyaasay qiimihiisa 400 milyan oo lacagta Giniga ah. sanadkii 2018 booliska Hyderabad ee dalka Hindiya ayaa bilaabay inay baaritaan ku sameeyaan sanduuq uu dahab ka buuxay oo la xaday kaas oo lahaa Cusmaan Cali Khan. Cusmaan Cali Khan waxa uu ololeynayay Hyderabad inay ka go'do Hindiya inteeda kale, xitaa wuxuu codsi u gudbiyay qaramada midoobay. wuxuu ka hor yimid go'aankii Hindiya ay ka doonaysay inay maamulkiisa ku soo biiro Hindiya, balse bishii September 1948 ayaa lagu qasbay inuu isku soo dhiibo ciidamadii Hindiya, waxaana loo magacaabay madaxweynihii Hyderabad oo ka mid noqday gobolada Hindiya sanadkii 1950. haddii aad sheekadan ka heshay fadlan share garay si uu gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo adigoo kala ah.